saaka toddobadii iyo barkii waxaan ka soo baxnay magaalada Gabiley aanu xoogaal ugu noqono xaaladda deegaanada aanu marayno saaka waxaanu soo maray tuulada Boqor Boorley Mataan Idanka iyo halkan aan ku sugannahay oo goraya intii aanu marinay waxaanu ururinaynay xogta dhabta ah ee taala iyo dhibaatooyinka xagga biyaha ka haysta deegaanadaas لودي لو ترى دي بنجي وشالي ساعات لما كنت جوي وكم كنت جالس جوي سكينة والمديس ده ما كان اللي يبزني كان يا اللي يبزن يا نقول يا هذا كيف قاعد والله هو دكتور تشيله كي كلوري يا إنه قاعد يتأركيان وده أركيان هذا ساك نحجي بنو كلان يا أركي أنا كروي إنه ما قاعد أمسك يرتقن إنه كروي أنا قاعد نقول سمعتين بدنا كو يسورون لوضع حدا أو مالهم للتمشليو تاس شقين ميسو إلى هنا وسكوا يا دتكن مركا واحد لنا هاي دتكن هل ياجو بيهنا هلا لسوق قارو بيلعن بلارن بقى جت ديجان كم بورلي أركبه تبلي العلاوي هو هالجاس تبلي إنه يا أنت العقل قص هكذا يستيهر أي نوجي بعد أنا شخصيا كاب سامة ما دونان كار كاي قال ما يبالي مالن أبهاي قص هذا دوني مقالة قبل كار كامل من معارض بتوجد معارض نبشرو كار كول سنة مركز ده يوم كود ده عشان وده على ما أنت وده على أرضك كجرتا إن عددهم كتر كان dadkii matalayaad meeshii ugu shubay baan tago way soo dhamaatay ubadkii iyo xoolihiiba iyagoo uman baan u tagayaa marka waxa weeyaan in dad biyaha loo soo gurmado umadu khaatiyaan bay taagan tahay meeshu waa mataanna wadiga arkayo weelkii baa maran odayadii beeshan deeriyaan ka anahay halkan waxa ka jirta abaar laba jira dhowr jeer horena waanu soo hadalnay biyo ma jiraan baad ma jiraan halkani waa meeshii annaka dadka caawin jiray marka abaar u dhacaan waa meesha saracdu aad uga bixi jiray bay ahayd qorayna sanadka jiilaalna waanu joognaa jiilaalkii hore laba jiilaal baa sugaya beeray marka xoolaha aad bay u jilicsan yihiin dadkuna waxa magaalada quudqodan wax raashinoo noo baxay ma jiro marka waxaanu leenahay dawladda iyo wixii wax maanta noo heli karayaa wax aad wax la noogu taro haddaba dhammaantood iyagoo ka hadlaya ayaa waxaa hadalladoodii ka mid ahaa wasaaradda macdanta iyo biyaha lacagtayadii baanu ku laanahay biyo bulshada boqor baanu nahay oon baan nahaya in sida u dhaqsiyaha badan biyaanu ummadda aad bay uma tahay xoolo way uma yihiin oo kasoo wada arkaysaan intii ka badnayd dhulka ayaa u kala kacay daragii waa madhiyi taangii waa madhiya ummadda waa ooman tahay aad iyo aad waxaan u codsanayaa cid kasta mas-uulka ahi in ay biyahaas la soo galaan madda soo guurtadii baa halkan taalla waa halkan taagana ka soo guuray balla gubadla iyo meel ka fogba waxaanu tagnay wakaaladda biyaha waanu u tagnay waanu ku noqonnay hal maalinaa lagu soo shubay taangiga bes oo lanagu qancinay aroortii dambena waa la waayay dhibaataha biyuhuna wax laga noolaan kara maa hadde oo nolosha bini'aadamka kow bay ka tahay waxa weeyaan xoolaha nool iyo dadka maanta waxa deegaanka weliba ku soo kordhay oo kale soo guurto dadka gumburaha iyo balligubadle iyo eeryadaa ka yimid ayaa aad u degan oo ariilo u badan iyo geel xoolahaas iyo ooma iyo sida kuyagaas bay ooma yihiin culayskaasaa haysta waddanka dawladdiina u xil lahayd ee u xil saaraydna ma oga taasi waxay ahayd Boqor haddana waxaynu dul istaagi doonaa tuulada Boorley hartoodii waa taa maran ma laha haddii alla yidhaahdo dadkani dameeruhuna way ku yar yihiin ceelkii biyihiina waa laga gooyey biyuhuna waxa weeye hagaag uma socdaan maalin soo dhacaan iyo maalin weeyaan xilliga la marayana waa taa la arkayo xilli adag oo xilligii uu adkaa xooluhu ugu jilicsan yihiin oo dadku jilicsan yahay baa lagu jiraa marka waxa weeye halkaa iminka waxa taagan dhallinyartii odayaashii haddii aan la yidhaha waayeelkii kale halkaasaa la taagay carruurtii yaryareed waa idinka arkaya marka waxa weeye maanta waxaanu doonaynaa oonu aad iyo aad u doonaynaa in biyaha ceelka hagaag loo soo daa sidaa waxaanu u sheegaynaa dawladdeedaanu u sheegaynaa oo barasaabka u horreeyo yaa isagaa haddii aan la yidhaha dawladdii dhexaa isagaa barasaabkiya
inuu arrinkaa noo tixgeliyo oo anigu wasaaraddii waan ka ilweyni waa runtaa la sheegaa wasaaraddii ma shaqaynayso barasaab haddaba waar dadkani waxay u baahan yihiin caawimo bood bay u baahan yihiin waxaanu u soo jeedinaa maamulka gobolka ay mas-uuliyiintii deegaankani u horreeyaan dadkan hagrashaa weligoodba ku dhacday hagrashay aad u qabeen biyo ma helaan iyagoo kaabayaasha asaasigaa weligoodba dadkani way ka liiteen war waxaanu soo jeedinaa annagu dadkan ciddii wax ku tari karasa hadday qurbajoog noqoto hadday mas-uuliyiintii deegaanka noqoto hadday noqoto maamulka gobolka oo dadkan biyaha lala soo gaadho taasi waxay ahayd boorley hadda waxaynu dul istaagi doonaa tuulada mataan biyaha intaa bisha rabadaan dadku maba dhalaaqi karayee bisha rabadaan in laga caawiyo deeriyaanka wanu yar dhaanay kolka hore deeriyaanka imika se dadkii waa isku itaalo annagana waxa naga dhamaaday berkadii iyaguna kolka hore berkado ma haysan dee dadka deeriyaanku way biyelaayihiin dee dadka loo gurmado dhaamkiina wuu maran yahay dee ma loo gurmado dadka loo soo gurmado dawladdu hadday tari karaysa dadka biyaha loogu soo shubo berkadaha annaguna ya deegaankana waa mataan deeriyaankuna wuu naga sii daran yahayba taasi waxay ahayd mataan hadda waxaynu dul istaagi doonaa tuulada idhanka waxaan ka hadlaynaa waa idhankii deeriyahanka sida odayaasha horeba ay ka dhawaajiyeen dad iyo dunyaba waxaa loo baahan yahay wixii ilaahay idiin dhiibay ee karaankiina ah ciddiina maqlaysa iyo ciddii haddii aan laydhaa daawan doontaaba in codkaasi gaadho sida ugu dhaqsiyaha badan lana in dadkaasi wixii aan laydiin dhiibay ee karaankiina aad la soo gaadhaan gaar ahaan gobolka ayaanu la hadlaynaa baad iyo biyo toona lama hayo taasi waxay ahayd idhanka hadda waxaan dul istaagi doonaa tuulada goray deegaankan aanu joognaa waa deegaan ballaadhan waa deegaan abaaraysan waxa weeyi dadkan xoolo dhaqatay ahaayeen dadka hadday xooluhu dhaafaan dee dadkuna way ku daba jiraanuun bishaa labada jiilaal waxa u dhexeeya waxa gulla yidhaa xagga alla gugii maanta u dhexeeye u ka baxay labadii jiilaal iyo jiilaal yar u dhexeeya saddexdaasaa dadka isku kaashaday waxaanu leenahay dadku ama qurbajoog ha ahaado ama xildhibaan la doortay ha ahaado ama ku laga codeeye ha ahaado ama xukuumadda dawladda gobolka gabiley ha ahaato intaba dadka waxaanu leenahay dee baadku dhulkaba uu ku wada yaryahay baad calaf haddii la helayana ha lanala soo gaadho biyana ha lanala soo gaadho xooluhu markay xoogga leegyihiin taroogta ayay ka arooraan xoolaha iyagii botor baa noogu sokaysa biyo 2 saacadood iyo 3 saacadood baa ay xooluhu socdaan saacad iyo bar xooluhu ma lugayn karayaan wax dhiileed ka sareeyo oo botor ka sokayso oo wadanka lagu hayaana ma jirto dawladda waxaanu ka codsananaa inay si degdega biyo noola soo gaadho oon mar ahayn oo laba ahayn oo inta raxmadda ilaahay keenayo dadka cidda wax siin kartaa waa ilaahay inta ilaahay si raxmadda keenayo dawladda waxaanu leenahay qacmo furan biyaha noogu keento waa Cabdisalaan Maxamed Bade